السلام عليكم. waxaan idinla wadaagi doonaa shay wax ka yaabiyey ilaa hadda weliba ka cajabiyey dadka imaaday qatar طبعا haddii ay noqdeen ingiriis brazil طبعا kuwa aanan akiid muslimiinta ahayn waxaa jira shay cajabiyey micnaha la yaab ma ahan shay cajabiyey soo jiitay shaygaasoo aadaanka muuqaalkan waan daari doonaa طبعا waa xulka ingiriiska tababaranayo waqtigii maqribka haddaba طبعا magaalada waxaa ku yaala kumanaan masjid xaafadda ay ku tababaranayaan xilliga maqribka ayaa la gaaray hal mar macnaha in la aadimo masaajidada طبعا hal mar aadaanka hal ilbirqisaya dhammaan masaajidada la wada aadimaa ma ahan macnaha masjid laba daqiiqo kadib kan shanta aadaanka hal mar ayuu dhacaa marka dhageyso wax yar aadaanka siday ula cajabeen wax yar ku soo noqon doonaa ووقت آذانك صحفي أحيانا ما كان صحفي إنجليزي نكان لقوا مقعبه هنري أيها صادقة معناها تراين إن دوحة محيا هيدا وقت آذانك كسو آذانك إن صلاة بركة قف بهذا التعليق بحيو يري عد قرحان يعني هذا وحيابها شيء يعني قارهان برازيليان كتض أنا ولي قد أرق ميل معناها مساجد أما لقى الدماء markay imaadeen macnaha aadaanka ay maqlayaan shay cajiib ah shay macnaha ruuxaani way la yaabaan xitaa fiir wax yar away ninkan brazil wax yar ku dardan oo kaadi wax yar adka u kaadi computerkan ka soo qaadi kaaga daariya waxay ahayd away wax yar آذان كان مسجد كان لقوا مع مسجد الشيوخ أو يعني وحصا صوري يعني مشجع برازيليا برازيل طبعا مركا بره بلشدو كفها فيه وحيري ولقي ماما قلعت صان قرحان ما شاء الله أحير سيدا يعني هذا مثلا مقال كان عد كان قرال كان وراعي وكفها فيه يعني حتى فيري وحاسيفها فيه أكاونتيه كلا دوان يعني وحاسيفها فيه أو تلمامي معناها درينك ودريماي درينك ودريماي آذانك شيء عجيبة معناها وحير عد كان محيطها وحاجرتي قبر يوتيوبر ده وقصة إسلامتي آذانك درتي وهذا ما كتكتاي ما شاء الله يعني داعية إمانته يعني مقالده كونتنت ay soo gudbiso wuxuu inay tagto wadan muslim ka dibin aadanka ay soo sawirto waxay tagi jirtay Turkiga waxay tagi jirtay wadamo kale aadanka macnaha shay cajiiba marka dambe waati macnaha way islaamtu way qaadatay halka dhinaca kale fiiriya halka dhinaca kale waxa la jeedaa macnaha noolayaasha aan dhahna midalan cilmaaniinta xaq jirka ah ee ku nool wadamada muslimiinta Masar hadda tusaale ahaan mid lagu tilmaami kar kale inuu yahay insaan jaahil xataa aanan aqoonin waxa ummad kale keenay macnaha inaad adag ka duwanaato wasiir ahaa ayaa wuxuu ku baaqay aadaankan wuxuu macnaha qaylada waxaan aadaankan yeerayo dalxiisayaasha imaanaya Masar ayay dhibayaan 24 saac way dhahan kuwa macnaha Masar طبعا يعني fahmi kartaan waxa ay yihiin aqliyadooda waxay dhahan macnaha aadaankan qaylinay dadka dalxiisayaasha imaanaya aysan dhibine aadaankan hal aamus mikrofoonada yaanan halka qofkaas aslan yani imaanaya dalxiisaha oo u imaanaya shay ka duwan wixii uu dalkiisa ku arkay inuu arko macnaha xataa fiiri noolayaashaas noocaas macnaha iska dhaf inay ummadda cadow ku yihiin naftooda xitaa cadow ku yihiin yani hadda ninkaas wasiirka ahaan jiray aadaankan ma rabno maxay ahayd dalxiisayaasha ayuu macnaha naga leexinayaan معناها اسمه ويدينايو إن قفكان dalxiisa أصلاً wax uu Masar u soo aadayo ama Qatar u soo aadayo ama xitaa ay meel uu aaday wadan ka duwan wala kulanka ama arkida wax ka duwan wix uu dalkiisa ku arki jiray markuu aadaanka arko yani shay cajiib ah marka adduunka waxaad ogaataa waliga in aysan jirin wax ka xun
haddii ay noqoto in la hormaro iyo wax walba xitaa fikirka caqliga uu bini aadamka nasiyey wax ka xun ma laha noolayaashaas nagu dhex nool ee aaminsan micnaha aaminsan xitaa ma si feeg ah usoo koobiyeynayo dhaqan iyo wax kale yani hadda fiiriya cid walbo qadar imaada hadda yani dalxiisayaashaas ama dadkaas koobka adduunka u imaaday malaayiinta ah milyan iyo 2 milyan wax saasoo kale imaanayo weligood aan arag kuwa yani meel dal muslima مثلا aan arag laga yaabo hadda Brazil oo kale hal masjid laba masjid inuu ka laakiin yani laga yaabo magaalooyin badan in hal masjid xataa uu ku oolin marka imaadaan macnaha shay cajiib oo soo jiidasho leh way sii faafinayaan intaasoo qof waa sii arkayso yani shay macnaha soo jiidasho leh ما شاء الله يعني شيء وحاوي رنتي عجيبة عجيبة معناها هالك كلية حقيقة قرارة جرت أيها وحياتها هاي إن أدونك وح كحون أي سنجر أصلا وح لمذوفكية وح فاجأة معناها قفك قلباتك قلبات نمديسة يا حضارة ديسة آمسا وحاجة معناها وجه أضغو إماطة لنا أضغو إماطة لنا عكالة qofka muslimka ah xadaaradiisa islaamnimadiisa dhaqankiisa waxiisa ku dhagan ay xitaa dhaqanka iska caadiga ah dhinacaad ugu imaada macnaha meel aad ugu imaada yaa jirto macnaha qaab loogu soo aad ayaa jirto halka laakiin qofka iska dhigahay macnaha si feeg ah meel aad ugu soo aad ma lahan yani hadda fiir wax yar aan youtube-ka ku baara hadda toos ayaan ugu jiraa waxa la Zaahi Hawaas Zaahi wasiirka wuxuu ahaa aasaarta mar Zaahi Hawaas al-Aadaan يتكلم عن الآذان fiir wax yar تيري كان محيره زي إذاعة الآذان بمكبر يزعج السياح فيريا وكلها هي باهنت آذانك وحو معناها لبايا بالحيسياش إيماناي شارك بحدث ما بيتكرر الحين صار الوقت اللي تعيش فيه حدث العمر حيسين بدنا معناها طبعا أدوك كوب كدوك سؤال وحيهوذن حيسين بدنا الأركاي يلا يبدو أن نصيب مصر من كعكة السياحة العالمية ليس جيدا يعني وحويدينا يا دلحيس معناه دلحيس ده مصر زمن كان هذا معناها هوس أيود عضي سداد وأركت عمل وحصة كله ويدينا يا دلحيس يعني مصر ضد بدنا إما هذا مالها فيرة وعديدونا وزير أيوها وحونا إلى هاي الإكرة التقديسية مع عبودة أثارتي إفراعنا دي حركتها كين ما برضو أنا فاكر في 2010 السياحة وصلت 10-12 مليون 14 بناء الطريق الغربي حير اوكي ماشي على اسيوط عايز احط موديل صغير ايوه يعني هو تستأثر بالطيران الداخلي لانها بتضايق السواح وانا كمصريين بنعملها بتضايق السواح دولة في العالم في السياحة بالشكل ده واحنا عندنا برضو حاجات جوانا كمصريين بنعملها بتضايق السواح هل احنا ضد السياحة في الثقافة المجتمعية انت لازم تحاول من دلوقتي لطلبة المدارس تعمل مادة للسياحة تعرفوا ازاي تتعامل مع سائح ما هو مش ممكن بقى واحدة ماشية يقول لك اتفضل وشدة غصب عنك لازم القوانين طبعا ما تقدرش قناعة حير محتاج حملة حق 2-3 قبله صح ما يتعمل جوه المسجد ايوه حير اللي هو الأذان يعني ما يتعمل جوه المسجد يعني آذان كان ما لقوا سماء جوا المسجد محا بنانك وإيمانايا و70 أذان يعني أنا مرة نمت في مينا هاوس كان عندي محاضرة يوم الفجر فنمت في مينا هاوس هلك فيري دلي يعني جواب تعاد الصحفي كان برازيلي صحفي عطينيها أمرنايا الصحفي كاس كلا معناها أن أوي كي يعني إنجليز كأها soo bandhigayo macnaha xulka ingiriiska la tacajubay aadaanka ayaa daliil u radka ninkan macnaha Zaahi Hawaas macnaha asaga ka shakhsi ahaan arrinka waxba naga qoseeyeen saas waxaan qoseeyay fikirka jahannamiga ku socda eega inta la midka dhaqanka anaga ka muslimiin ahaan ma aaminsano ay muslimiin sheeganayo in bijirtaba ma aaminsano in wax walba wadankaada yani hadda fiirada wadan markaad u safarto يعني قوانين أيها كجرة وحبال لو قولي وحبال لديدين يعني لكن نولياش النوع أنا كله فيكت أو حير ربان إن قفكاس إيمانا يصحف كاس عندنا مثلا دالحيساس إيمانا يو وح
waxa asaga macnaha qaabka asaga uu rabo in wax walba loo bedelo doqonnimada haddana sida hadda kii yani xawaaskaasoo kale fahan la'aanta yani isma weydiinay aslan qofkan imaanaya masar ama wadan muslim imaanaya in aslan uuba u imaanayo waxyaabaha dhaqanka muslimiinta la xiriiro yani xataa fiir marka hadda qadar imaadaan oo kale dabaqyada ma aadaan meel mandiqad waxa lagu magacaabo jirto lagu magacaabo maxay dafna dabaqyad dhaadheer cid aadama lahan waxay aadaan suuq waaqif meesha yani qadiimka ee guryihii hore dadkii hore ay ku yaaleen ayay aadaan shay waxay rabaan muujinaya dhaqan carbeed shay muujinaya wax macnaha islaam ka duwan meesha ay ka imaadeen mar labaad haddaan kusoo celino noolayaashan sida hadda ninkaas maxay ahayd zaayi xawaas iyo inta ku fikirka ah inta xitaa aanan la gaarin inay ummadda macnaha cadow ku yihiin naftooda xitaa ay cadow ku yihiin doqonimadooda marka aadaanka yani shayga ugu cajiibsan ee ilaa hadda ka cajabiya ummadahan shay يعني عجيب براها bulshada ku faafinayaan masaajidadii hor dhooban yihiin maxay taa codkaan ma qiyaas kartaa marka inta qof ee ku ta'athuraysa ee islaamka qaadanaysa ka waran hadii yani midalan aqliyada ninkaas oo kale aan ku soconay aqliyadaas gubatay jahannamiga ah zaahi xawaaskaasi inta ku aqliga ah yani xataa hadii anaga naga mid yihiin xataa yani wax soo kor ilaa mala waxaan ahaan lahayn uun yani wax been soo sacay dhinac loo raaca aan lahayn marka inaad in dhinac meel lagugu imaado inay jirto yani hadda saxafigan braziliga iyo dadkan waxa keenay macnaha dal muslim ah macnaha islaan meel loogu imaado muuqato yani masjidkan way la yaaban yihiin aadaanka laakiin ka war hadii la sida zaahi xawaas oo kale macnaha yeena didine aan maraaqis iyo niika iyo wax aan keenno waxay ku leeyihiin kun ka daranba dalkayga yaal khamri haddaad rabtaa way taalaa brazil haddaad rabto dumar qaaqaawan brazil ay taallaa ani waxaan rabaa inaan arko wax ka duwan wixii aan brazil ku arki jiray marka qof walboo leh dal muslim ah yani waxa maalan wadan hebel ka jiro oo kale ayaa sax ah yani siday ayaga samaynayaan boqolkiiba boqol aan u samayno qofkaas yani jiritaanka wadanka ayuu lid ku yahay aslan وانا خطر اما وحاليك حتى وحلقوا قاعده كره دولده waxay خيانه عظمى معناها خيانه قرن sababta waxay ka dhigantay aan ka takhalusna wax anaga wax naga dhigay macnaha inaan nahay ummad jirta inaan dadnahay wax naga dhigay aan ka takhalusna aan noqono yani nusxa ibra oo yani la taqliidiyay oo aan sax ahayn oo kuwaas kamid aan noqono hal mar ugu dambeyn السلام عليكم كبحنا وحير صوبته هذا شيء يعني يا سلام هل كان نكاس ينتكو عاقل قال طبعا كنائستا قنبلالد اي قراعان مسلم وشاقرين اساق معناه حتى فير قنبلالد اي قراعان كنائستا شيء حضارت يا سلام لكن آذانك مايا عدو قاعد قرأ موضوع أنت أنا كويجهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.